الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باب التشهد هذا متكان باب التشهد أتحيات كباب كيسي ويه waxaan ka guda gelaynaa halkan oo sheekhu axaadiista uu soo keenayaa ka hadlaysa qaybta ugu soo horeysa ee taxiyaadka qaybaha dambena wixii taxiyaadkaas la xiriira sida ducooyinka la akhriyo tashahud waxaa hadda loo wadaa taxiyaadka oo dhan laakiin ereygaas waa taxiyaadka qaar ka mid ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuuluh ayaan taxiyaadka ku arki doonaa tashahudka intaasaa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa loo wadaa atixiyaadka oo dhan min baabi tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli qaaraa la cabiray laakiin dhammaan ayaa maqsuudku yahay xadiidka koobaad ee tashahudka can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud callamanii wuxuu i baray rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama atashahuda atixiyaadka ayuu i baray kafii xaal calaa cashaydu bayna kafayhi labadiisa calaacalood dhexdooda ay tahay sidaan iskugu dhownahay kamaa sidii wuxuu ii baray atixiyaadka yucallimunii ou ii barayay asuurata suuraddaasoo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah atixiyaadka uu nabigu barayna sala allahu calayhi wasalam waa kan attaxiyaatu lilaahi waasalawaatu waadayibaatu assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh intaas weeye riwaayadan cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu attaxiyaatu salaamyaal lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen waasalawaatu salaadaha shantaahina ilaahay bay u sugnaadeen waadayibaatu waxyaabaha wan wanaagsan oo aqwaal iyo afcaal iyo awsaafba isugu jiraana ilaahay bay u sugnaadeen assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaato ayuhaa hooy annabiyu nabigow waraxmatullaahi iyo ilaahay naxariistiisu wabarakaatuhu iyo ilaahay barakooyinkiisa assalaamu nabadgelyo calaynaa dusheenna ha ahaato wacalaa cibaadillaahi iyo ilaahay addoomihiisa korkooda addoomihii alsaalixiina ee wanaagsanaa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaahi inaan la helaynin ila allaahu ilaahay mooye wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxamada nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu iyo kow soo diray riwaayadan cabdullaahi ibni mascuud sidaas ayay ku soo aroortay wa fii lafdin lafdi dhexdiisna waxaa ku soo arooray idaa waqtigii qacadda uu fadhiisto axadukum qofkiin fi salaati salaada dhexdeedana uu fadhiisto waa atixiyaadkii waqtigiisii falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilaah ilaa aakhirkii laga gaaro wadakarahu wuxuu xusay raawigu lafdigii aan soo marnay ee atixiyaadka dhammaantii isagoo nabiga ka soo guurinaya sala allahu calayhi wasalam wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaa dambe fa inakum adinku idaa waqtigii facaltum aad samaysaan daalika arrinkaas oo atixiyaadkaas aad akhrisaan faqad sallamtum waxaad salaamteen calaa kulli cabdin addoon kasta korkiis addoonkaasoo saalixin wanaagsan addoonkaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda iyo walardi dhulka dhexdiisa wa fiihi waxaa kaloo ku sugan xadiidkaas falyatakhayar ha door qaato min almas'alati waxweydiisiga uu ilaahay wax weydiisanayo asagoo ha door qaato maa shaaa wuxuu doono oo ha doorto qofkaasi ducada uu ducaysanayo wixii uu rabo ilaahay ha ka baryo adduun iyo aakhiraba atixiyaadka marka la yidhaahdo xukumkiisa fuqahadu way isku khilaafaan fuqahada waaweyn imaamu shaafici wuxuu leeyahay atixiyaadka dambe waa waajib weeye atixiyaadka dambe adilada uu sheekhu u daliishanayana waxaa ka mid ah xadiidkan falyaqul amarkaas nabigu baxshay sala allahu calayhi wasalam laakiin markii la fiiriyo atixiyaadka alfaadiisa oo dhan sheekha madhabkiisa laftiisa waajib ma wada ahan qaar ayaa waajiba
aqal iyo akmal uu leeyahay. inta aqalka waa waajib oo ugu yar, akmalku laakiin waajib iyo wuxuu isugu jiraa iyo sunno. waxay kaloo isku khilaafaan fuqahadu riwaayaadka ataxiyaadku maadaama ay fara badan yihiin. riwaayaad fara badan ayaa soo arooray, ataxiyaad badan oo saxaabadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay soo guurinayaan. marka lafdigeebaa ugu wanaagsan, qoloba lafdi bay dooratay. imaamu abi xaniifa iyo imaamu axmed ibnu xambal, labadaas imaam waxay doorteen alfaadda ku soo aroortay xadiidka cabdullaahi ibnu mascuud oo aan hadda dul joogno. lafdigaasay qaateen oo ataxiyaatu lilaahi waasalawaatu sidaas ah, oo mubaarakaad iyo aysan ku jirinin yay doorteen. imaamu shaafici raximahullah wuxuu doortay cabdullaahi binu mascuud xadiid uu warinayo ayuu doortay. marka qolo walbaba wixii ay ku doorteen yaa la tilmaamayaaho asbaab ayaa jirta ay si gooniya ugu doorteen, laakiin dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin siiqada la akhriyo inay ku asaxayso. siiqooyinkaa soo arooray oo riwaayaadku kala duwani ay sheegayaan. maala imaamu shaafici raximahu llahu tacaala waxyaabaha uu ku doortay xadiidka cabdullaahi binu cabaas atixiyaadka ku soo arooray waxaa ka mid ah, waxaa ku sugan lafdi tusinaya alcinaayatu biاtacalumi waاtacliim. markuu sheegaya saxaabigu wuxuu yidhi kaana yucallimuna atashahuda kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan. suuradda qur'aanka sida uu noo baro ayuu atixiyaadkana noo baray. sidaasuu yidhi cabdullaahi binu mascuud, waxaan leeyahay binu cabaas. marka macnuhu waxaa weeye cinaayo gooniya ayaa ku jirta, ihtimaam gooniya ayay arrintaasi leedahay. inkastoo xukumkaas cabdullaahi binu mascuudna sidoo kale isaguna uu wariyey. waxaa kaloo uu ku doortay imaamu shaafici, waxaa ku jira lafdi ziyaada ah. riwaayaadka kale ma wataan, laakiin riwaayatu bni cabaas almubaarakaat lafdigaasay maaragtay wadataa riwaayadaasi. markii mubaarakaadkaas la fiiriyo ay wadato waxay waafaqsan tahay lafdigii qur'aanka, taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan dayiba. marka muwaafaqada qur'aanka iyo lafdiga ziyaadada mubaarakaadka iyo qaabka uu cabdullaahi ibnu cabaas uu u soo wariyey xadiidka, waxyaabahaas yuu sheekhu ku doortay atixiyaadka. ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaat, sidaas weeye lafdigiisu cabdullaahi bn mascuud. marka waa axaadiistii saxiixaynka iyo keyrkoodba, oo cabdullaahi bn mascuud xadiidkiisu waa xadiidu saxiixayn oo weliba mutafaqu calayhi oo bukhaari iyo muslim ay isku raaceen. xadiidkani asaguna xadiid kaloo saxiixa weeye cabdullaahi bnu cabaas. kadalika cabdullaahi ibnu qays abu muusa alashcari isaguna xadiid saxiixa oo warinaya, wahaakada. marka alfaadda atixiyaadku wax ciriiriya ma lahan. riwaayaad badan oo saxiixa yaa ku soo arooray oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ay wada warinayaan. qof walbaba midkii uu akhriyo soo arooray waa ku asaxaysaa salaadiisu. laakiin waxay fuqahadu isku khilaafayaana waxay tahay lafdigeebaa sii wanaagsanon doorannaa. marka xadiistiyo saxiixoo la kala dooranayo weeye. sidaas yaa macnuhu noqonayaa. can cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud callamanii wuxuu baray rasuulullahi ilaahi rasuulkiisu atashahuda ataxiyaadka ayuu baray. kafii xaal wuxuu tilmaamayaa sida ay iskugu dhowaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. kafii xaal calaa cashaydu bayna kafayhi labadiisa calacalood dhexdooda ay tahay. kamaa sidii yucallimuni suurata suuradda sida uu ii barayey, suuraddaasoo min alqur'aani qur'aanka ka mida, waana kan atixiyaadkii uu nabigu baray sala allahu calayhi wasalam. ataxiyaatu waa jamcu taxiyatin, jamcu taxiyatin wey. taxiyadu waxay leedahay afar macne. milkiga waa la yidhaahdaa, salaamtana waa la yidhaahdaa, cadamadana waa la yidhaahdaa, baqahana waa la yidhaahdaa. intaba waa lagu macnayn karaa. waxaase u badan oo culimmadu badanaa ay ku fasiraan salaamta. ataxiyaatu salaamyaal, sidaasuu macnuhu noqonaya. lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen oo nabadgelyada ilaaha bixiya subxaanahu wa tacaala. waasalawaatu iyaduna laba tafsiiray leedahay. waasalawaatu salaadihii la yiqiinay oo salaadaha shanta ah oo faradka ah oo fadliga badan, iyaguna ilaahay bay u sugnaadeen subxaanahu wa tacaala. waxaa kaloo la yidhahdaa salawaat jamcu salaatin oo naxariista ah. waasalawaatu naxariisyaal, labada macnoba waa lagu fasiraa. waasalawaatu salaadihii shantaha in la yidhaahdo,
iyo in la yidhaahdo wasalawaatu naxariisyaal labadaa tafsiir ay leedahay. wadayibaatu adayibaat waa jamcu dayib, dayib shayga wanaagsan marka qowlow noqon karaa, ficilna waa noqon karaa, sifana waa noqon karaa. macnuhuna waxa weeye dayibu lawsaaf, sifaadka la yidhaahdo waa sifaatu lkamaale ilaaha iskale subxaanahu wa tacaala. macnuhu sidaas ayuu noqonayaa. assalaamu nabadgelyo calayka dushaada ha ahaato ayuhaa hooy annabiyu nabigow, iyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisa, iyo wabarakaatuhu barakooyinka ilaahay barakooyinkiisa. assalaamu nabadgelyo calaynaa dusheenna ha ahaato, iyo wacalaa cibaadillaahi ilaahay addoomihiisa korkooda, addoommihii alsaalixiina ee wanaagsanaa. xadiidkan markii nabigu barayey sala allahu calayhi wasalam, saxaabadu marka ay atixiyaadayaan oo salaamtaasoo kale maal ay joogaan waxay dhihi jireen assalaamu cala allah, assalaamu calaa fulaan, assalaamu calaa fulaan, assalaamu calaa fulaan, inta dadka tiriyaan magacooda. markaasuu nabigu baray sala allahu calayhi wasalama. markaasuu wuxuu raaciyey sida xadiidka qaybta dambe la socota, sallamtum calaa kulli cabdin saalixin fi اsamaa'i waalardi wa calaa cibaadillaahi asaalixiina. marka la yidhaahdo saalixiintaasi kuwa cirka jooga sida malaa'igtoo kale iyo kuwa dhulka jooga sida saalixiinta kale yay dhammaan ducadaasi gaaraysaa wey. waa duca caama, lafdi caamaha nabigu baray sala allahu calayhi wasalam. ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaahay inuusan ahayn helitaanka dhexdiisa, laa macbuuda bixaqin fi lwujuud ila allah, ilaahay mooye. waashhadu ana muxamadan, waashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan nebi muxamedna cabduhu ilahay addoonkiisa inuu yahay, warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa inuu yahay. riwaayadan ibnu mascuud sidaas ayaa alfaadda taxiyaadku ku soo arooray. wa fii lafdin, wawarada fii lafdin, lafdi dhexdiina waxaa ku soo arooray idaa waqtigii qacada uu fadhiisto axadukum qofkiin fi salaati salaada dhexdeeda, waa fadhigii hadda kama dambaysta ahaa, falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilaah. wadakarahu wuxuuna xusay taxiyaadkii hore. wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkaas dambe, fainakum idinku idaa facaltum haddaad samaysaan daalika arrinkaas oo atixiyaadka sidaas aad u akhrisaan, waa sidii nabigu sala allahu calayhi wasalama uu u baray cabdullaahi binu mascuude, faqad sallamtum waxaad salaamteen calaa kulli cabdin addoon kasta, addoonkaasoo saalixin wanaagsan kaasoo fi samaa'i samada dhexdeeda iyo walardi dhulka dhexdiisa. wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan falyatakhayar ha doorto min almas'alati wax weydiisiga xaggiisa ha ka doorto maa sha'a wuxuu doono. markii aad atixiyaadka dhammaysid ducooyin adduun iyo aakhiraaba yaad ilaahay ka baryaysaa subxaanahu wa tacaala. wakhtiga qofku salaadda uu ku jiro oo munaajaadka rabbi uu ku jiro, wakhtiyada uu ugu dhow yahay in la aqbalo weeye. sidaa darteed uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama, markaad atixiyaadka dhammaysid oo aad sidaas samaysaan, markaas kadib doorta su-aasha wax alla wixii aad doonaysaan. marka uma liyatakhayar min almas'alati maa sha'a, waxyaabaha laga qaatay waxaa ka mid ah jawaazu kulli su'aalin yatacallaqu bidunya waalaakhira. waxa adduun iyo aakhira ku tacalluqa inuu qofku weydiisan karo ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay uma liyatakhayar min almas'alati maa sha'a, macnaheedaa sidaa ha doorto isagu wax weydiisiga wuxuu doono. meeshii marka culays kaa haysto ilah culayskaas iga qaad yaa maaragtay aad leedahay, oo adduunya aakhiro yaad ilaahay weydiisanaysaa subxaanahu wa tacaala. xadiidka labaad ee baabka can cabdiraxmaan ibni abi leyla, taabicigaas waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibni abi leyla la yidhaha xaggiisa. qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan, laqiyanii waxaa ila kulmay kacbu bnu cujrata, kacb ibnu cujra ninka la yidhaahdo ee saxaabiga ah, kacb ibnu cujra waxaa la yidhaahdaa kacb ibnu cujra min bani saalim ibni cawf, reer bani saalim bini cawf uu ka tirsanaa. waqiila min bani alxaarith ibni qudaaca, reer bani alxaarith uu ka tirsanaana waa la yidhaahdaa. manaaqibtiisa waxaa ka mid a shahida baycata ridwaan, baycada la yidhaha baycatu ridwaan ayuu xaadiray. wamaata sanata 52 bilmadiina, magaalada madiinana wuxuu ku dhintay markii hijradu ahayd 52 sano. ruwaadda waaweyn oo maaragtay jamaacada la yidhaahdo ummahaatu sitana xadiidtiisa way wada qoraan. kacab ibnu cujra waa saxaabi. faqaala wuxuu yidhi kacab, alaa ahdii, war maan kuu hadiyeeyo laka adiga hadiyatan hadiyo. saasuu ku yidhi cabdiraxmaan ibn abi leyla.
hadiyadaas maxay tahay anna nabiya nabigu sallallahu alayhi wa sallam man ku hadiyeeyo way anna nabiya nabigu sallallahu alayhi wa sallam kharaja wuu baxay alina dusheenu ku soo baxay faqulna markaasaan waxaan niri yaa rasuul allah ilaahi rasuulkiisow qad xaqiiqani maan calimnaa ogaanay oon barannay kayfa sidii nusallimu aan u salaamayno calayka dushaada oo salaamta waan naqaanaa sida aan kuu salaanno fakayfa sidee baan nusalli ugu sallinaa calayka dushaada salaamta waan naqaanaahe salligana na bar qaabkiisa faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam quuluu dhaha allaahuma yaa allah ilaahayow salli u naxariiso calaa muxamadin nebi moxamed korkiisa wa calaa aali muxamed nebi moxamed aalkiisa korkoodana ilaahu u naxariiso kamaa sidii ugu naxariiso sallayta aad u naxariisatay calaa ibraahiima nabi ibraahim korkiisa aad ugu naxariisatay innaka adigu ilaahayow xamiidun ilaah la mahdiyey baa tahay majiidun oo sharaf leh xadiidkani wuxuu ka hadlayaa salliga nabiga sala allahu calayhi wasalama saxaabadu waxay weydiiyeen rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qaabka ay ugu sallinayaan marka sidaanuuna nabigu u tilmaamay siiqadan quuluudaas waxaa laga qaatay salligu salaada dhexdeeda inuu waajib yahay iyo keyrkeed intaba oo qofka cumrigiisa hal mar ayuu ku waajibayaa khaarija salaa salaada dibaddeeda salaada dhexdeedana ataxiyaadka dambe waa waajib sidaasaana madhabulimaami shaafici uu yahay raximahu llahu tacaala eelkaa soo haray eelka asaga eelka in lagu salliyo asaga salligiisu waa tabaciya nabigu la socdaa sala allahu alayh wasalam marka nabiga lagu salliyo kadib yaa lagu salliyaahe eelka salligiisu asagu ma waajiba mase waa sunno waajib miya mase waa sunno aimada qaara waxay leeyihin waa waajib maxaa yeelay amarkaas quuluudaas yuu daba socdaa oo dhaha allaahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed quuluudii amarkaa heda la hoosgeeyey oo ay daba socdaan oo amarkaasaa ka wada dhexeeya laakiin imaamu shaafici raximahullah wuxuu leeyahay salliga eelka lagu salliyaahi waa sunno ee waajib maaha waxay kaloo aimadu isku khilaafaan eelka la sheegayahay man hum waa kuwa ma aalu nebiyi marka la yidhaha sala allahu calayhi wasalam imaamu shaafici wuxuu leeyahay banu haashim iyo banulmuطalib yaa la yidhaahdaa aalu nebiyi sala allahu calayhi wasalam marka halkan la joogo sidaasaa loo wadaa qaarna waxay leeyihiin ahlu diinihi ayaa loo wadaa wixii ahlu diinahoo dhan salliga qaabkan ku soo arooray oo siiqadan ku soo arooray su-aal ayay culimmadu iska weydiiyaan allaahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed cidda lagu salliyey waa labo waa nabiga sala allahu calayh wasalam iyo aalkiisa tashbiiha dambena ilaahay muxuu aha nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama kamaa sallayta calaa ibraahiima kamaa sallayta calaa ibraahiima riwaayo kale marka waxay tahay calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima oo nebi ibraahim iyo aalkiisii labadoodaba la israacsiiyo marka bushigu wuxuu ka imaanaya su-aashu ka imaanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim waxaa maaragtay darajo sarreeya oo fadli badan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka ilaahayow nebi moxamed ugu naxariiso nebi ibraahim saad ugu naxariisata marka la yidhaahdo macnaheedu sow ma ahan in nebi ibraahim markaas uu fadli badan yahay waxaana machuudahoo la ogyahay nabigu inuu yahay afdalu khalqi illaahi cala aliطlaaq khalqiga ilaahay oo dhan inuu ugu fadli badan yahay su-aashaas marka jawaabteeda laba qaab iyay culimmadu ku tilmaamaan qaab waxaa weeye waxa laysku shabahayaah waa aslu salaah naxariista asalkeeda wey waxa laysku shabahayaa maahane qadarkii zaa'ida ciddii ilaahay siiyaa leh taasi waa mid oo waxay la mid tahay soomka ummadda nebi moxamed ay soomto iyo soomkii ummadihii ka horreeyey soomeen asagoon isku waqti yahayn iskuna caynhayn yaa ilaahay isu ekeysiiyey qur'aanka kariimka kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidaasaa la yidhi marka aslu soom weeye waxaa laysku shabahayaa maahane isku caynna maahayn isku waqtina maahayn tanina sidaasoo kale ay noqonaysaaho waa aslu salaad waxaa laysku shabahayaa mooye qadarka ma aha waxaa laysku shabahaya qadar lagu shabahayay maaha waxaa kaloo bushigaas looga jawaabaa oo aimada qaar ay ku sharxayaan labada jumlo allaahuma salli calaa muxamed
wax la socda lama arko iyada halkaasay ku dhanta وعلى آل محمد يا وحي لا سعتا كما صليت على إبراهيم marka nabi maxamed aalkiisa ilaahayo waxaan leeyahay nabi maxamed aalkiisa ilaah ugu naxariiso saad nabi ibraahim ugu naxariisatay taas markii la yiraahdo nabi ibraahim awal ba aal maxamed waa uu ka sareeyay aal maxamed oo bushigii meesha ka baxaya marka in labadooda la kala gooyo oo la yiraahdo allahumma salli ala muhammad waa war istaagay oo aan tashbiih wadan وعلى آل محمد وحي وضطا كما صليت على إبراهيم وحل اسكو شبه يا محاي تهي وأن حريستي نبي إبراهيم إلهي ونحريستي ينحريست آل محمد صلى الله عليه وسلم لبضبا واللقب الشبه صلى الله عليه وسلم أما حلاشي يا حرام تقوت المامية والشيء غالي أفضل الهدية وي مركز صحابي قال إنك تابعي هو درين سينيا حديث كان نبي إنه يهي هدية لقو فرحه وفكي هلانا أوقاته marka wuxuu yiri nabiga nabigu sallallahu alayhi wa sallam kharaja uu soo baxay caleena dusheena ku soo baxay faqulna markaasaan waxaan yiri ya rasuulallah ilaahi rasuulkiisa waqad calimna waxaan ogaanay oo baranay bimaana arafna kayfa sidin nusallimu wa nusalaamaynu alayka dushaada oo waan naqaana fakayfa sidaba nusalli usallinayna alayka dushaada faqala markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam qulu daha allahumma salli allahumma ya allah ilaahi yusalli wa nahariso على محمد النبي محمد كركيس وعلى آل محمد نبي محمد آل كيس كركودنا إله وقول حريص كما سيدي صليت أدوغون حريصتي على إبراهيم النبي إبراهيم كركيس إنك أدوغ إلهي وحميد مثل مهدي آياتي كاسو مجيد شرف له أو شرفا جل وعلا حديث كسد هذا بابك عن أبي هريرة أبو هريرة حق سوح قوري رضي الله عنه قال وحوير أبو هريرة كان وحوها رسول الله إلى رسولك صلى الله عليه وسلم يدعو متكد عيسته دعاء صوصعته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال انت سكد عيسى جري نبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحديدة اللهم يا الله إلهي إني أنوغ أعوذ وحن مغنقليا أو بك أدق أن كان مغنقليا من عذاب القبر قبر عذاب كيس حقيس ومن عذاب النار نار عذاب كيدا حقيس ومن فتنة المحيا نرشه إيا والممات لمشهد فتنة دودا حقيدا ومن فتنة المسيح الدجال قال كمسيح الدجال ليراه فتنة دانا فتنة دي سواء كان مغنقليا من فتنة المسيح مسيحك إيش لايو إيش مسحناي وي إلو لايه الدجال أو بنت بدناي وي إله نمو يوحن شيرين وشاغنيا وحن ساق حقي سبا سو شيرين ساسا لوغو بحي الدجال قفك الله قفك بين بدن دجال على هذا وحا لوغو بحي شغدي قال كاس أيو كسفو بي بين بدن هودنا الدجال هذا قبل الدجال الدجاجيل دجال كدنبو آخر الزمان كاك وكلا كسو ريو شغدي سيسي هيا إلهي بان كما قالنا سبحانه وتعالى وفي لفظنا وحكو صور لفظ قاسو لمسلم إمام مسلم سقنا رواية مسلمة إذا وقتك تشهد أو أتحياد أحدكم قفكين فليستعيدها مغنقلوا بالله إلهي من 4 أفرك مغنقلوا يقول حليه هي مركز مغنقل إلهي اللهم الله وإني أعوذ بك أديك وحنك مغنقل من عذاب جهنم ثم مركز كقذال ذكر وحو حسين نحو الحديث السابق حديث كي هراء أو كلاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر رواية هراء رواية من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواية وحي ومن شر فتنة المسيح الدجال ولفظ الشر القدره روايات كاسورن وحيت الماميان لaba shay bay tilmaamayaan shayga koobaad waxa weeye ithbaatu cadaab alqabri qabrigu inuu cadaab leeyahay ilaahay baan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala oo qabrigu nicmo keliya maahane dadka qaarna waa loogu nicmeeyaa qaarna waa lagu cadaabaa cadaabkiisa allah naga koriyo subxaanahu wa tacaala nicmadiisana allahna siiyo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa inay sunno tahay dhaqankii nabigana ay tahay sala allahu calayhi wasalam salaada inta aad ku jirtid inaad ilaahay ka magan gashid waxyaabaha nabigu ka magan galay calayhi salaatu wasalaam oo qabriga cadaabkiisa naarta cadaabkeeda nolosha iyo geerida fitnada ay leeyihiin oo su'ul khaatimadu ugu liidato
iyo allah naga koriye iyo masiixu dajaalka fitnadiisa intaasba in laga magan galo ilaahay subxaanahu wa tacaala inay sunno tahana waa laga qaadanaya labadaa xugum yaa xadiidka noogu jira can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hurayre xaggiisa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu hurayra kaana wuxuu ahaa rasuulullahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam yadcuu mid ku ducaysta allaahumma yaa allahu ilaahayow innii anugu acuudu bika adiga waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa xaggiisa wa min cadaabi annaar iyo naarta cadaabkeeda xaggiisa wa min fitnati almaxyaa nolosha iyo walmamaati dhimashada fitnadooda xaggeedana waan kaa magan gelayaa wa min fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa xaggeedana waan kaa magan gelayaa wa fii lafdin lafdina waxaa ku soo arooray lafdigaasoo limuslimin imaamu muslim u sugnaaday idaa waqtigii tashahada uu atixiyaadayo axadukum qofkiin falyastacid ha magan galo bilaahi ilaahay min 40 ka magan galo yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma yaa allahu ilaahayow innii anugu acuudu bika adiga waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi jahannama uma markaas ka gadaal dakara wuxuu xusay naxwahu naxwa alxadiidi asaabiq xadiidka afaraad ee baabka can cabdillaahi bni camr bni alcaas cabdullaahi bni camr bni alcaas waxaa laga wariyey can abi bakrin sida abi bakr xaggiisana uu ka wariyey asidiiq ee runbadanaha ahay radia allaahu tacaala canhu annahu sida abi bakr qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama callimnii ibar rasuulka ilaahayow callimnii ibar ducaaan duco ducahaasoo adcuu aan ku ducaysto bihi ducaha fii salaatii salaadayda dhexdeeda faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qul waxaad tidhaahdaa markaad ducaysanaysid allaahumma yaa allaahu ilaahayow innii anugu dalamtu waxaan dulmiyey nafsii nafteyda dulman dulmi kaasoo kaiiran badan walaa yakfiru mana dhaafo addunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga mooyaane fakfir lii ilaahu ii dhaaf makfiratan dhaafitaan makfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay warxamnii ilaahu ii naxariiso innaka adugu anta adugu alghafuuru ilaah dhaafid badan baa tahay alraxiimu addoommihiisana u naxariista xadiidkan sida cabdullaahi ibnu camar ibn alcaasba oo sida abibakar ka soo wariyey sayid abibakara nabiga wuxuu weydiistay sala allahu calayhi wasalama munaajaadka rabbi inta uu ku jiro salaada dhexdeeda duca uu ku ducaysto marka ducadaanuu nabigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi qul dheh amar nabigu amray weeye salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi marka xadiidku wuxuu tusinayaa adducaau fi salaa bi haadihi alalfaad alfaadan inuu qofku salaada dhexdiisa ku ducaysto laakiin xadiidka lama socoto meesha salaada looga ducaysanayo salaada meesha looga ducaysanayo maxalkii ducada xadiidka kuma dhex jirto maadaama aysan ku dhex jirin ayimmadu markay axaadiista kale u fiiriyeen laba meelooday mid u dooreen meeli waxa weeye sujuudda maxaa yeelay xadiid kale oo waxaa jira uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama wa ama sujuudu fajtahiduu fiihi fi dducaa sujuudda dhexdeeda ku dadaala ducada waa markuu qofku ugu dhow yahay in ilaahay aqbalo subxaanahu wa tacaala xadiidkaas way ku lifaaqeen oo waxay yidhaahdeen meesha sujuuddu waa owle oo way ku owleysan tahay waxaa kaloo jira xadiidan hadda soo marnay qofku markuu atixiyaadka dhammeeyo uma markuu atixiyaadka dhammeeyo kadib falyatakhayar ha doorto min almas'alati wax weydiisiga alle maa shaaa haddii xadiidkaas la fiiriyana meesha ku owladaah ku habboonay waxaa weeye markuu atixiyaadka dhammeeyo halkaasayna u badan yihiin xufaaddu inay ku fasiraan xadiidka oo ay yidhaahdaan muxuu ahaa atixiyaadka kadib ha la akhriyo ducadan atixiyaadka kabacdi ha la akhriyo in la yidhaahdo yay maaragtay ay u badan yihiin oo halkaasaa lagu fasirayaa laakiin labada meeloodba waa lagu akhrin karaa lafdiga ku soo arooray ducada waxaa ka mid ah innii dalamtu nafsii dulman kaiiran qofku si kasta oo u dadaalo si kasta uu cibaado badan yahay inuusan gaboodfal ka marayn insaanku hadduusan ahayn addoon ilaahay ka milay sida ambiyadoo kale yaa xadiidkaas laga qaadanayaa sida abibakar rajul saalixuu ahaa nabiguna wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam inuu yidhaahdo innii dalamtu nafsii dulman kaiiran marka taasi xugum caamahay tusinaysa oo dadka maaragtay badankoodaba ku tacalluqa maxaa yeele xadiid waxaa jira nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam istaqiimuu walan tuxsuu toosa maba koobaysaan axwaashiina kuma koobaysaan toosidee
bal toosa oo isku dadaala inaad toostaan in wax laga soo laabanayo oo sidii la rabay aan lala wada imaanaynin yaa xadiidka laga qaadanaya. xadiid kalena waaba jiray kullu bni aadam khada wa khayru lkhada'iina atawaabuun, ibnu aadamkao dhani waa gefayaa, inta geftana waxaa ugu khayrka badan dadka ka soo laabta gefka. waxaa akhiirka ku jirta xadiidkan walaa yakfiru dunuuba ilaa anta, walaa yakfiru dunuuba ilaa anta. xadiiث اlqudsiya wuxuu ahaa addoonku markuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhaahdaa calima ana lahu rabban yakfiru dunuub, addoonkaygu wuxuu ogaaday inuu leeyahay ilaah dunuubta dhaafa. marka taasay la mid tahayo walaa yakfiru dunuuba ilaa anta qofku markuu yidhaahdo waa wax aad iyo aad u weyn. waxaa kaloo la yidhaahdaa ducadan qofka la yimaadah wuxuu ku sifoobay addoommaha ilaahay saalixiinta oo cibaadullaahi saalixiin la yidhaahdo sifaadka qur-aanku u tilmaamay sifo ka mid a. aayad qur-aanah ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala oo dadkaa saalixiinta uu tilmaamayey waaladiina kuwii idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan xumaan markay sameeyaan ow dalamuu anfusahum ama naftooda ay dulmiyaan dakarullaah ilaahay xusa oo fastakfaruu weydiista dhaafid lidunuubihim dunuubtoodiina dembidhaaf uu weydiista ilaahay. waman yakfiru dunuuba ila allah, yaa dhaafa dembiga ilaahay mooyaane cid kale ma dhaafto. marka walaa yakfiru dunuuba ilaa anta qofku markuu leeyahay aayaddaas macnaheedii wuu ku sifoobayaa waman yakfiru dunuuba ila allah. marka waxaa ku jira ducadan imtithaalun lima ahna allahu calayhi fii qowlihi tacaala waladiina idaa facaluu faaxishatan, fartoomid la fartoomay ammaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommaha saalixiinta oo uu tilmaamay. can cabdillaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma can abi bakr asidiiq radia allaahu canhu anahu sayd abi bakr qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaahi ilahi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam callimnii bar ducaaan duco, ducadaasoo adcu aan ku ducaysa bihi ducaha fii salaatii salaadayda dhexdeeda. faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qul waxaad tidhaahdaa allaahuma yaa allahu ilaahayow innii anugu dalamtu waxaan dulmiya nafsii nafteyda dulmigaasoo kaiiran badan. riwaaya waxay ahayd dulman kabiiran. imaamu nawowi wuxuu leeyahay si labada riwaayadoodba loogu camal falo innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran hala yidhaahdo, si labadii xadiidba loogu camal falo oo laysu daba dhigo labadoodii. walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga maahan ee fakfir lii ilaahayow ii dhaaf makfiratan dhaafid, makfiradaasoo min cindika agtaada ka ahaatay, warxamnii ilaahu ii naxariiso. marka fakfir lii waa dembi dhaaf dalab, irxamniina waa naxariis dalab. laba sifoo kala tusinaysana gadaala laga raaciyey. innaka adugu anta adugu ilaahayow alkafuuru ilaaha dhaafidda badanaa tahay, fakfir lii ay muqaabil u tahay. alraxiimu ilaaha naxariistaa tahay, warxamnii bay u tahay markaas muqaabil. xadiidka shanaad oo baabka ugu dambeeya can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalad waxay tihi caaisha maa sallaa muusan tukanin rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam salaatan salaad bacda an unzilat markii lagu soo dejiyey kadib calayhi nabiga dushiisa sala allahu calayhi wasalama idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu, idaa waqtigii jaaa uu yimaado nasrullaahi ilaahay u gargaaridiisa nabigiisa uu gargaarayo sala allahu calayhi wasalam oo cadowga uu gargaarayo, iyo walfatxu furashada maka, wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja, aadna aragtid dadkii oo jamaaca u soo gelaya diinka ilaahay meeshay halhala u soo geli jireen. fasabbix bixamdi rabbika, ilaahay nazah, sabbix alle nazah bixamdi rabbika rabbiga xamdigiisa xaalaad ku dheehan tahay, wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso, innahu ilaahay kaana wuxuu ahaada tawaaban mid toobad aqbalid badane. suuraddaasi markay sidaas ku soo degtay kadib nabigu salaad ma tukan ayay tiri caaisha radia allaahu canha, ilaa haddii uu tukado salaad yaquulu wuxuu lahay nabigu sala allahu calayhi wasalam fiiha salaada dhexdeeda subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii. intaasuu israacinayay. waa aayaddii intii ay amartay macnihiisii weeye. subxaanaka fasabbix wey, allaahuma rabbanaa wabixamdika, bixamdi rabbikadii wey, allaahuma kfir lii wastakfirhu wey.
intaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam israacsiinayey wa fii lafdin lafdina waxaa ku sar aanu macnaynay subxaanaka nusabixuka waan ku nasahaynaa rabbiyow subxaanaka la nasahidaada ficilkaas go-ana lagu nasbinayaa waa mafcuululmutlaq caamilkiisi go-an yahay allaahuma yaa allahu ilaahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wabixamdika xaalaan ku dhehannahay xamdigaaga allaahuma yaa allah ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf wa fii lafdin lafdina waxaa ku soo arooray kaana wuxuu ahaa rasuulullahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam yukhiru inuu badiyo an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda iyo wa sujuudihi sujuuddiisa dhexdeedaba subxaanaka la nasahidaadaan ku nasahaynaa rabbiyow allaahuma yaa allah rabbanaa yaa rabbanaa wabixamdika xaalaan ku dheehannahay xamdigaaga allaahuma yaa allaahu ilaahayow ikfir lii ilaahu ii dembi dhaaf xadiidkani wuxuu tusinayaa mubaadaratu rasuuli sala allahu calayhi wasalam ila imtihaali maa amarahu allahu tacaala bihi nabigu inuu u degdegay sala allahu calayhi wasalama fartoomidda wixii ilaahay faray iyo inuu laasimay arrinkaas maxaa yeeley ilaahay baa yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu intii nabiga la amray inuu la imaanayay nabigu sala allahu calayhi wasalam oo maaragtay oo amarka ilaahay oo si degdega u qaatay ayaa xadiidku tusaalaynaya can caaishata radia allahu canha qaalat maa sallaa ma tukan rasuulullahi ilahi rasuulkiisu sala allahu calayh wasalam salaatan salaad bacda an unzilat markii lagu soo dejiyey kadib calayhi nabiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam idaa jaaa nasrullahi waalfatxu ilaa haddii uu tukado yaquulu wuxuu lahaa fiiha salaada dhexdeeda subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii wa fii lafdin lafdina waxaa ku soo arooray kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxaa yughiru mid badiya an yaquula inuu yihahdo fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudihi sujuuddiisa dhexdooda subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii wallahu subxana wa tacala aclam